hay-adda Amuud Foundation oo ka shaqeysa taageerista iyo tabarucaadka dadka tabaalaysan ayaa waxay maanta deeq soo gaarsiisay maamulada kala duwan ee Isbitaalka Al-Hayaat dhimirka iyo Katibida ee magaalada Boorama iyo sidoo kale ururka samafalka iyo taageerista dadka tabaalaysan ee Tawfiiq iyo walaalahooga xanuunsanaya iyo sidoo kale kuwa tabaalaysan ay kala qayb qaataan dhibaatooyinka haysta. Ugu horeyn ayaa waxa madashani ka hadlay maamulka hay-adda Amuud Foundation isla markaana tilmaamay in hay-adda Amuud Foundation waqti walba ay u taagan tahay taageerida iyo tabarucaadka dadka tabaalaysan ayaa waxa uu yiri danahay Amuud Foundation mudadii 18 sanadood u dambeeyay waxaan u taagnayn in dadkeena Soomaaliyeed ugu horeysa magaalada gobolka Awdal ama magaalada Boorama ayaan u taagnay ilaahayna uu nagu garab joogsaday waxaan u soconaa waa ikhlaas in dadkeena wax u qaban haday abaar tahay haday caafimaad tahay haday aqoon tahay haday wax walba tahay maanta waxaan mahad u celinaa hay'adda Baytalmaal ama caahid ku magac dheel ka dhisan dalka Mareykanka Isbitaalka Katibida dadka ugu dhibaataysan wali meel walba ka yimiday ay ku jiraan meereyhiisa iyo dadka also dadka dhimirka sida isbitaalka ku jira marka anagu hadii ilaahay nala qabto wixii aan soo diray kana waan soo dirana dadaal xaqiina hadii ilaahay yiraahdo. intaasi kadib ayaa iyaguna waxa madashani ka hadlay maamulka Isbitaalka Al-Hayaat maamulka Isbitaalka dhimirka maamulka Isbitaalka Tibida iyo sidoo kale maamulka ururka samafalka ee Tawfiiq dhamaantoodna waxay u mahad celiyeen maamulka hay-adda Amuud Foundation waxayna sheegeen anigoo ku hadlaya magaca maamulka isbitaalka iyo shaqaalaha isbitaalka waxaan mahad ballaaran oo la koobi karin u jeedinayaa hay-adda Amuud Foundation donation ka ay siiyeen maanta Tawfiiq oo ah hay'ad samafal ah oo wax weyn ka qabata hay-adda anagu maanta mar hore aan aragnay waxaan u ballan qaadnay dadka masaakiinta aqalada markii ugu tagaan arkay liitay waxba qaban lacag haysan inaan oo keenaan lacag la'aan ku daweynaa way dadkii maartay iyakuuma oo kuwa aad u liita marka waxaan kala u mahadnaqayaa haweenkan maartay Tibida iyo maskaxda iyo kuna maartay hawlo badan bay qabtaan mahayna Amuud Foundation wadanka oo dhan bay ka qayb qaataan wadamada oo dhan bay ay ka geystaan waxay ka qayb qaateen maxay ahaydeen Mareykanka dhexdiisa kuwii ka dhacay doofaanadii ka dhacay soo ma Amuud Foundation wax loo kala it's quite well international weeyaan foundation and horta taasi waa taas ta kale waxa weeyaan waxaan u mahadnaqaynaa iyadna shaqaalaha isbitaalka haduu sharaf leeyahay hadii cid kastaba la yiraahdo isbitaalkan uu fiican yahay yaa ka dhigay macnuhu weeye gudoomiye ma dhismaha iska dhigay intan baa ka dhigtay weeye intiina wali way joogtaan aan waxaan isleeyahay waa isbitaalka ugu hadan ka quality fiican xalay baan ka soo qaadaya tusaale waxa la keenay gabadh milix ku dhacday oo milixda wali way kala dhowdahay heer ay gaadho nafteedii ay wax khatar gasho ka hadlaya magaca isbitaalka dhimirka ee magaalada Boorama marka ugu horeysa ilaahay baa mahad leh waxaan halkan farxad ii weynaa inaan la kulmo gudoomiyaha ugu weyn ee ugu sareeya ururweynaha Amuud Foundation hay'adda khayriga ee Amuud Foundation oo maanta halkan nagu gudoonsiisay runtii agab aad looga baahnaa isbitaalka oo dad runtii aad u xanuunsanaya yaalaan foundation oo dad badan runtii ugu deeqday wixii iyaga Ilaahay u soo dhiibay iyaguna sii gaarsiiyay intii ummadda kale sii gaarsiinaysay waxaan idin leenahay gudoomiyahooda gudoomiye ku xigeenkooda shaqaalahooda dhammaantiin Amuud Foundation hawsha aad wadaan Ilaahay ha idin sii fududeeyo isku soo wada duuba ugu dambeyntii munaasabadani ayaa dhamaantood waxay ka gudoomeen deeqdii ay ugu tala gashay hay-adda Amuud Foundation iyagoona u mahad celiyay وعبد الله داهر وعيس تيفيق عالمي Bulsha TV مقالة Boorama